shir jiraayad oo warbaahinta ugu qabtay qaybta hoose ee buundada ceelgaal gudoomiyaha gobolka hiiraan yuusuf axmed hagar dabageed ayaa faahfaahin waxa uu ka bixiyey halka ay marayso dhismaha buundada ceelgaal oo dhismaheedu ay iska kaashanayaan maamulka gobolka hiiraan iyo gaadiidleyda gobolka. meeshaan waxaa la yidhahaa buundada ceelgaal ilaahay keyrkiis ayaa waxyeelo ka soo gaareen roobkii 13 bisha dhaawac gaarsiiyey ayada iyo meelo kaloo wadada ka mida ama buundooyin kale oo wadadu marto oo aagga Matabaan iyo beledweyninta ka dhaxaysa ah intaan hadda ognahay ayada u dareedo marka waxaad mooddaa in muddo ilaa maalikii biyaha ilaa hadda gaadiidku kala xiraay safarku kala xiraay Soomaaliya isku xirtaan buundadan gobolada dhexe iyo koonfurta isku xirtaa waqooyiga iyo koonfurta isku xirtaa bariga iyo koonfurta isku xirtaa waxa waaye marka alxamdulillah maalikii dhibku gaaray maalikii dambo halkaana nimid ilaa haddana waa joognaa waxaan u joognaana waxay ahaayeen in wixii gaaray aan wax ka qabanno ilaahay hadduu idmo ilaahayna aan u tala saaranno dadka reer hiiraan iyo dadka Soomaaliyeedna qof kasta oo wax ka geysanaysa aan ka kaashanno alxamdulillah hadda ilaa waqtigii la soo dhaafay waqtiga la joogo meel fiican ay wax loo marayaan buundada dhismaheeda hadda waxa isla wada maamulka iyo gaadiidleyda waxaan soconaynaa tabaraan socdoo haynaa tabar waxna laguma yara waxna ka daali mayno inta wadada baahidu lagu sii hor muuqato haddii alla idmo ilaahayna taladu waa loo saaran tahay cid kasta oo waxaan ka shaqaynayna wax ka garanaysana waxaan kala kulanno waa ka nasiibsanaynaa. gudoomiyaha gobolka ayaa dhinaca kale iclaamiyey in maalinka Isniinta ah ay soo aadan uu kulan dhexmari doono maamulka gobolka hay'adaha ganacsatada gaadiidleyda madaxda shirkadaha kala duwan iyo qaybaha bulshada rayidka ee Hiiraanka oo ka dhici doona deegaanka ceelgaal oo 15 kiiloomitir dhanka kuleelo waqooyi ee beledweyne dhaca isla markaana looga hadli doono sidii la isaga kaashan lahaa dhismaha buundada ceelgaal buundooyin kale iyo wadada laamiga ah oo dhammaantood burbur xoogan xilligan uu ka muuqanayo kadib markii burbur uu ka soo gaaray daadad ka soo rugmaday roobab qaybo ka mid ah gobolkan ka daay dhawaan. waxaan leeyahay marka hore haddii Soomaaliya laga soo tago oo reer Hirshabeelle laga soo tago ayadoon xumaana looga tegay waxaan leeyahay marka hore muwaafaqa Allah idiga dhigo waxa idiga hadlaysana Allah idin tuso waxa idin hagaagsana Allah idin tuso waxaan idiga codsana in waxa idiga hadlaysano aan idin sheegaynaa waa buundadan iyo wadadan iyo waxyaabaha la mid ah annaga muddo hal isbuuc ku dhawaan idigu yeero haynaa danihiinii oo burburay safarkiinii oo kala xiran buundadii oo go'an laamigii oo burburay ama biyo ay la tageen aan idigu yeero haynaa wax kalena idigu yeeri maynee waxaan rabnaa waxa meesha ka jira inaad indhihiinna ku aragtiin tala aad shirka ku tihiinna aad ka gaartiin dood ka samaysiin injineerada aad dhegaysatiin sida loo xallin karo aad ka dhegaysatiin markaad dhegaysatiin ciddaydii xallinaysa iyo saad uga kala qayb qaadanaysaan aad isku sheegtaan
kadibna waxaan isku wada ognahay oo qofba kaalin ku leeyahay inay soo baxdo aan ku wada shaqayno ujeeddada aan idigu yeeraynaa husaas waay codsiyay naga tahay annaga hadda waxaan ka xishoonaynaa ama aan ka xishoonnay inaan madaxna idii ahaano markii dhibdhacana aan idi dhahno xaan idi dhaannaa dee wax idima dhaanno waanu ogtihiin xoddayno dadkiinniyaan nahay oo waa idila joogno waxaan ku sugannahay wax badan aad ka warqabtiin ama gobol ahaan ha noqoto ama isteyd ahaan ha noqoto laakiin haddana waxaan idiga ilaalinaynaa in madaxaan idiin nahana aan idi dhahno wax idima dhaannana aan idi dhahno waxaan isleeyahay iskuma kiin qabato waxaan idi dhaanno oon madaxtiinnimada aan ku qaban karno waatan meeshaan u jiifno waatan ka shaqaynood u jeediin buundadu maalinkii biyuhu gooyeen meeshay joogto waa ogtihiin meeshay hadda marina waa u jeediin laamigii iyo buundooyinkii kalena waa dhiman yihiin safarkii meesha labada dhinac ku kala xayiraay xooggiisu inuu kala socdo saakou bilowday waddaan u samaynay inta waddadan iyo buundadaan laga hagaajinaa maalmahaanna waxaan ugu kaadinaynay dee dhulku waa qoynaayoo meeshii maaragtay iyo geed laga gooyo ama baallo la mariyo la yidhaaho baabuurta mara dee dhulkiaba iska go'ahoo kayr ilaahay ku dhacay intay ka qallalaysaan u kaadinayna marka 3 maalmoodoo roob la'aana kadib waxaa loo suurto gashay inaan waddo u samayno safarkii taagnaayo labada dhinac kala yimid oo uu iskaga gudbo waadiga meeshii laga goy lahay aan ka samayno intaasna shaqada buundada wixii laga qaban kara aan ka sii qabanno waxaan idigu yeeraynaa reer hiiraano waxa waaye marka waxa saas u yaalnoo naga dhexeeya inaan ka tashanaan idigu yeeraynaa haddii reer hiiraan u taliyana waa lala yidhiye waxaan diidaynaa waxaa la yidhi qurux haddii alla ku siiyo waa la isla qalqalloociyaahe inaan waa idii talinaynaa aan idigu qasabno addukoon hadda cod meel loogu ridin waxaa nooga fiican inaan idii odayaynoon idii yeernoon dhahno kaalayaan wada tashanne waxaan naga dhexeeya aan ka tashanne ninkii yimaadana waa u mahad celinaynaa waana ka wada tashanaynaa wax naga dhexeeya waxaan isla meel dhignaana ka wada shaqaynaynaa ninba meeshii looga diro unu ka shaqayn doona haddii alla idmo ciddii hadda ka cuslaysato imaa waysana ayadana allaha soo hanuuniyaan leeyahay wakhtigay nagu soo biirtaan sugaynaa una joogsamaynaa allah taladu noo saaran tahay intaayna isku timaadaana waa isla sii wadi doonaa waxaana hor yaalla haddii alla idmo reer hiiraan waxaan leeyahay marka gaar ahaan kuwa hadda caasimadda joogee degmada beledweyne ee buundadan aagga laga xukumo ah waxaan idiga codsanaynaa haddaad hay-ad madax ka tihiin iyo haddaad shirkad madax ka tihiin iyo haddaad ganacsato tihiin oo ilaahay wala xudisiye aad haysatiin wax naga dhexeeyaan ka tashanaynaa waxa meesha yaalna iyadoon leediiga sheekaynaad indhihiinna ku arkaysiin kadibna taladiinna iyo waxay idila tahaad ka dhiibanaysiin aqligaan isku darsanna kadibna aan wax dheefka isku darsan doonnaa aqligaan kow isku darsanaynaa marka hore aragtidaan isku darsanaynaa marka labaadna caqligaan isku darsanaynaa marka saddexaadna go'aan aan isla gaarnaan dhinac wax iskula wadaynaa haddii alla idmo ujeeddadaan idigu yeeraynaana taas waaye qof danteer maahan qolo danteer maahan qof gaarahoo loo yeeraana ma jirto qolo gaarahoo loo yeeraana ma jirto qof gaarahoo la diidaayo qolo gaarahoo la diidaana ma jirto dadkan u yeerayna waxa waaye dadka reer hiiraan ee jooga caasimadda gobolka hiiraan ee degmada beledweyne ayaan u yeeraynaa dadkiisa waxgarta iyo dadkiisa waxyaqaan iyo dadkiisa waxhaysta magacuu raba ha ku haayo mas-uuliyadda nuucuu raba ha ku haayo kulli inaan meeshaan iskugu nimaadoon wada aragno mugaan wada aragno aan ka wada tashanno muhiimadda aan leynahay iyo meeshaan u soconnaa meeshaas waa
waana noo dhax talada waa noo dhax haddaad isleedihiin duqaanu magaalada ma yimaado kadib ma inta wixii jira idiigu sheego in mid kale gadaashayda soo rogsoo wiraa wuxuu idii sheegaa wax kama jiraan aan diida marka waxaan rabaa inaan meesha lafteeda iskugu nimaado waxaan arkaa ad ila aragtiin ama maamulku wuxuu arkaa aad la aragtiin injineeradu waxay sheegaan aad wax ka dhegaysatiin qoraalkay soo diyaariyeen laydii qaybiyo kadib marka dhaawaca la isla xaqiijiyo haddana sida loo daaweynaa aan isla odorosno ka talaysanno go'aanna ayaan ka wada qaadanno aan meel isla dhiganno ujeeddada aan idigu yeeraynaa saas waay aadaan uga xunnahay inaan khamiis idii yeerno qaarkiinna yimaad qaarkiinna imaa waayo aan sibdi haddana idin ballamino qaarkiinna yimaadna qaarkiinna imaa waayo arrintaas aadaan uga xunna waxaan codsanaa danaha gaarkaa in loo kaadiyo midda guud aan hor dhigno middan guud aan hor dhigno xooggaan ayada iskugu geyno waxay la tahay haddaan midda guud boqolkiiba 50 aan wax ka qabanno ama aan qaybsanno kuwa gaarkaana waa fududaanaan qof kastoo dan gaara leh nuucay rabta ha u lahaatee danteeda gaarka waa fududaane wuu sii hadlay gudoomiyaha gobolka yuusuf axmed hagar dabageed yaalidaha reer hiiraan ayaana dhankooda uu ku booriyey in kaalintooda ay ka cayaaraan horumarinta gobolka gaar ahaan dhismayaasha xilligan lagu sameynayo waddada laamiga ah iyo buundooyinka burburka uu ka muuqanayo dadka reer hiiraan oo dibadaha jooga aan ayagana mid ka codsan rabaa adduunyada hal tuulo iska noqotay si miidiya loo helay waxaa ka jira hiiraan meeshiin aad ku ogtihiin qaaradaad rabtiin joogay say wax u dhacaan waa u jeediin waxaan idinka codsanaynaa waxaad adukuna ka geysan kartiin inaad ka geysataan adukuna waxaad ka geysan kartaan oo deegaankiinna iyo dadkiinna dhibaatadiisa waxaad ka geysan kartaan inaad ka geysataan adinkana waa idinka codsana waxaan ogahay 2 qabiilo hadda hiiraan joogtaa hadday dirirto lacagta soo aruurinaydiin ood soo diraysiin oo dadka risaasa looga bixiyo qolada reer hebela ha lagu laayo baabuur ha looga bixiyo qoryo ha looga bixiyo bariis iyo baasta ha looga bixiyo aad leedihiin ciidanka oo faraha badan ood soo aruurinaysiin waa ognahay cid kastaana sidaasu aad sameeyo haysee hadda qolo gaar loogu tiirinaho ma jirto oo qolo kasta haddii qof laga dilo waxay jeceshahay sidii waxay qofkii arkay inay 5 qofoodoo kala dilaan qofkiina la arki maha dhibaatadiina waa la sii kordhinaa walaalayaalow waxa alla idin sii ood shaqaysateen oo dalkiina dalan ahayn aad u joogtiin aakhira wax ilaahay idigu kaalmaynaa adduunkaana magac iyo sharaf idii ah dadkiinana wax u galaa ku bixiyaan idileynahay ku bixiya adduunkaana sharaf iyo karaamad idii ah dadkiinana dan u ah waxa alla idin siiyey oo ilaahay ninba si ku siiyey ku bixiya ha ku bixina walax dadkiinana dhibaato ku ah aakhiradiinana dhibaato ku ah wax sharafahood adduunka anood ku helaydiina ayna jirin wixiina ha ku bixina waa ku bixidiina ha ku bixina wadooyinkan waxaad ku bixidiin aakhiraad ugu tegaydiin adduunkaana dadkiina iskula jira laakiin reer hebelaa nin dilay mugaadihii xataa midkii laydiga dilay iyo agoontiisii iyad wax u aruuridiin aduku waxa dilinaha wixii la dilay la arki maayo ma lihidiin hala soo laayo kuwa kala dhahowaysiin xoolo fara badan oo ku bixinaysiin sidaas daraaddeed waxaan rabaa
in arrintaas caqligu shaqeeyo oo laga waantoobo oo waxa alla na siiyey caqliga ilaahayna siiyey iyo xoolaha ilaahayna siiyey iyo talada ilaahayna siiyey inaan waxa ilaahay raalli ka yahay aan uga shaqayno waxa ilaahay raalli ka yahay inaan uga shaqayno ilaahay laga rabaa kaliya waxaan ilaahay naga rabo walaahayn haddaan ka shaqaynana waxaan ka shaqaynayna wax ka soo bixi maayaan ilaahay wuxuu noo samaystay oo inuu ka shaqayno ogolaay walaahayn haddaan ka shaqayno waxba sooma saari karnaa waa isku daalaynaa waa isku dambaabaynaa aakhira cadaabaan ugu tegaynaa adduunkaan anagoo isnacnaan kala tegaynaa waxaasna waxa sabab u ah ilaahay wuxuuna raalli ka yahay haddii laga shaqeeyo xaajadu saas noqoni xaajadaas saas noqoni wax alla ka raalli yahay haddii laga shaqeeyo wax alla raalli ka yahay haddii laga shaqeeyo xaajadu waxay noqoni si aad aakhirana ku faraxdo sida culimmadu noo sheegtay adduunkaana dadkoo isla jecel iskula joogaan walaalayaal waa mahadsantihiin waxaan leeyahay mugan reer hiiraan meeshaas uga baxo reer hirshabeellana inay intaas la qabaan waa rabaa